السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن أو وناكسن داوديال ميل كستو دونيدا كجوكتان كسو دوادا برامج كارمها سياسة ورقات أو حليدان أو كلا الله سعوتان قلوبادا أينو مانتيدي هاينو وحا أقوا وين khilaafka xukuumadda iyo baarlamaanka oo cirka galay gudoomiye mursal dhabarka ayuu u jeediyay filla Soomaaliya farmaajo iyo qeyrana amar ayay siiyeen muddo haddaba maxaad ka ogtahay dulucda khilaafka heerkan gaaray ee u dhaxeeya filla Soomaaliya iyo baarlamaanka farmaajo Muuse Biixi waa la isku keenayaa wadahadallo toos ayaan u bilaabanaya Soomaaliya iyo Somaliland xog dheeraad ayaan idinkaga haynaa dawladda garwadeenka ka ah waxaynu kala barnaamijkeedan ku soo gudbin doonaa Soomaaliya oo Turkiga ka codsatay fulinta ballanqaadyo hore madaxweyne farmaajo maanta ayuu dhagax dhigay dhismaha mid ka mid ah xarumaha taariikhiga waana madxafka qaranka daawadayaal u diyaar garooba qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo barnaamijka arrimaha siyaasadda warqad aynu idinkugu soo gudbino ku soo dhawow Dilaal abka Dilaal waxa uu ka caawinayaa inaad wax iska iibiso ama aad iibsato adigoo gurigaaga jooga si fudud isaga iibi geli sawirka shayga aad iibinayso geli faahfaahinta shayga aad iibsanayso ku dhufo post la hadal iibsadaha ama iibiyaha adigoo isticmaalaya qaybta wada hadalka lana wadaag sawirro iyo locationka ka dejiso abka Dilaal Google Play Store markale kulanti wanaagsan waa axad bisha 12aad ee December ay tahay 9 sanada 2018 haddii aynu ku bilaawno barnaamijka khilaafka xukuumadda iyo baarlamaanka ayaa cirka galay gudoomiye mursalna dhabarka ayuu u jeediyay filla Soomaaliya ayadoo madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare qeyre amar ay siiyeen gudoomiye muddo waxa sii cuslaaday khilaafku u dhaxeeya madaxda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan gudoomiyaha baarlamaanka iyo xukuumadda waxaana kulamo saacadii la soo dhaafay ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya ku soo dhamaadeen kala tag iyo farataag sida aan ka helnay ilo xoggaal oo ka tirsan filla Soomaaliya arrinta ayaa cirka sii gashay kadib markii saysan filayn madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare qeyre oo go'aan ku gaaray gudoomiye mursal inay sharci darro tahay tallaabadii lagu kala diray guddiga maaliyadda oo dhawaan soo gudbiyay warbixin maaliyadeed oo muran badan dhalisay afayeenka golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa si cad u diiday dalab kaga yimid madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha taas oo la xiriirtay inuu sharci ka dhigo guddiga la kala diray isagoo ka maqan dalka balse ugu dambeyn oo ku amray shalayto inay shaqadooda sii wataan kulamo xalay ilaa saaka aroortay yeesheen saddexda guddoon ee baarlamaanka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo madaxweynaha dalka ayaa noqday kuwa lagu kala tagay iyadoo aan wax natiijo laga gaarin gudoomiye mursal ayaa ku dhagaadeegay in wax sharciga baalmarsan uusan ku taageerin madaxda sare ee dalka sidaas awgeedna uu ku adkaystay guddiga maaliyadda shaqadooda inay sii wataan afayeenka golaha shacabka ayaa soo istaagay in go'aankii guddigaasi lagu kala diray oo ahaa sharci darro sidaas awgeedna uusan ka noqon karin tallaabadii shalay uu gaaray isla markaana shaqadooda ugu fasaxay ka sokow khilaafka xukuumadda iyo baarlamaanka waxa hadda soo shaac baxay inay ka dhex talatay gudoomiyaha golaha shacabka iyo labadiisa ku xigeen oo la safan xukuumadda kadib isfaham waaga kulamadii ugu dambeeyay madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare qeyre ayaa u xil saaray gudoomiye muddo inuu xal ka gaaro diidmada qayaxan ee ka imaatay afayeenka golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan dagaalka siyaasadeed ee ka dhaxaloosan gudoomiye mursal iyo ku xigeenadiisu waxay keentay in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ku xigeenada gudoomiyaha baarlamaanka ay la saftaan iyadoo tani sababi karto muujado siyaasadeed in lagu furo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya haddaba maxaa keenay khilaafka heerkan gaaray iyo in gudoomiye mursal uu ka soo horjeesto filla Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ku qasbanaaday inuu qaato go'aan uu ku soo celinayo guddigii maaliyadda ee hore uu kala diray ku xigeenkiisa koobaad Maxamed Mursal ayaa madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare qeyre hordhigay shuruud ah in dawladda Soomaaliya ogolaato doorashada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed inuu ka qayb galo Mukhtaar Roobo Cali Aba Mansuur oo dawladdu ay diidan tahay iyo in dib loo soo celiyo ciidamo ka tirsan dawladda federaalka oo Baydhabo la geeyay gudoomiye mursal ayaa ka soo horjeestay habka filla Soomaaliya uu faragelinayso doorashada Koonfur Galbeed isagoo dhowr jeer shirar la yeeshay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hordhigay caqabadaha arintan ka dhala kara
gudoomiye mursal oo dalka ka maqan ayaa baarlamaanka Soomaaliya waxa gilgilay warbixin ay guddiga maaliyaddu soo saareen isla markaana ay ku sheegeen musuq inay ku kacdo xukuumadda ra'iisul wasaare Kheyre gaar ahaan wasaaradda maaliyadda iyadoo taasi ay ka dhalatay xiisad xoogan oo ugu dambeyn sababtay in gudoomiye ku-xigeenka koowaad guddiga maaliyadda uu kala diro gudoomiye mursal ayaa markii uu dalka ku soo laabtay la yimid qorshe ka duwan kan madaxda dalka waxaana ka soo dhinac muuqday xildhibaano badan oo ka tirsan kuwa mucaarsan dowladda nabad iyo nolol madaxda dalka ayuu ku wargeliyay gudoomiye mursal inay faraha kala baxaan doorashada koonfur galbeed balse markii loo cadeeyay in arrintaasi aysan dhici karin ayuu ku hanjabay inuu soo celi doono guddiga maaliyadda ee la kala diray taas oo shalay too ugu dambeyn go'aankeeda uu qaatay وهجاك داود يالقي به يجوه الرئي برامج كي نكوجد جرنا دبيا لو بلابيا وده هذا الذي يقول حي سومالية سومالي لان والله بدي السنة لصودا في دمدعو كي مد سيدا يشجعان إلى حقوقالا جمعية قرمها كده حيسا أياجر ودانكا أرنتان دبلو قبل لابيو وده هذا الذي يقول حي سومالية سومالي لان wakiilka jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa suuqa balsan arrimaha Soomaaliya ayaa kulamo gaar ah la qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka dhaadhiciyay in dib loo bilaabo wada hadallada hakadka galay oo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland si loo helo midnimo ummadda Soomaaliyeed kulanka ugu horeeya waxa lagu wadaa inuu ka dhaco wadanka South Africa sida ilo xoggaal ay noo sheegeen safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya ayaa sidoo kale isna arrintan kaalin ku leh waxaana la sheegayaa dhawaan kulan oo la qaatay madaxweynaha Soomaaliya inuu kala hadlay inkastoo jawaab cad aan laga hayn wali madaxweynaha dhawaan ayaa lagu wadaa sidoo kale inuu gaaro magaalada Hargeysa ee Somaliland si kulamo ula soo qaato madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isla markaana uu kala hadlo arrimaha dib loogu bilaabayo wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland xubno ka socday midowga Yurub oo dhawaan kulan la qaatay madaxda Somaliland kadib warka soo baxay Somaliland waxa lagu sheegay in diyaar u tahay dib in loo bilaabo wada hadallada u dhaxeeya Soomaaliya iyo Somaliland dalalka caalamka ayaa dadaal xoogan ugu jira in la isku keeno madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin wali lama cadeyn waqti rasmi ah oo labadan mas'uul la isoo hor fadhiisi doono si dib loogu bilaabo wada hadallada labada dhinac warqad ayaa nagala socotaan barnaamijka arrimaha siyaasadana waa daawanaysaan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta ayuu dhagax dhigay dhismaha xarunta madxafka qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda oo ay weheliyaan wasiiro ka tirsan xukuumadda iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhagax dhigay xarunta madxafka qaranka halkaas oo lagu dhisi doono barnaamijka isxilqaam madxafka qaranka oo dhawaan maamulka gobolka Banaadir uu ka raray dad rayid oo deganaa tan iyo burburkii dowladda dhexe dalka ayaa ugu dambeyn maanta la dhagax dhigay waxaana dib looga bilaabi doonaa dhismaha markaasi lagu hirgelinayo barnaamijka isxilqaam fakarka isxilqaam wuxuu ka bilaawday dalkan waa duminay gacmaheena ku duminay siduu wasiirka sheegay yaa dhisaya yaa mas'uuliyadda ka saaran tahay inuu dib dalkan u soo dhiso ma waxaan sugaynaa gacmo shisheeye ma waxaan sugaynaa dhaqaale shisheeye ma waxaan sugaynaa ilaa aan dhaqaale helno inta dalkeenu saan burbursan yahay mise annagaas ku tashanna annagaas xilqaanna fakarkaasi wuxuu dhalay ficil oo aan maanta halkan u joogno ayaan dhaweyna aan u bilownay shaqada tiyaatarka haddana hadduu ilaahay yidhaahdo ku xujinayno laabeeriga hadduu eeba yidhaahdo iyo meelo badan iyo xarumo badan oo dowladdu leedahay iyo jidad iyo cisbitaallo iyo iskuullo hadduu ilaahay yidhaahdo aan ku dhisanayno muruqeenna iyo maalkeenna aan isku dhisanayno dalkan wuxuu ku dhismay dhaqaalo Soomaaliyeed iyo dhidid badan oo la geliyay haddii aan doonayno inaan dib u dhisno dalkan intii iyo in ka badan inaan gelino weeye maxaa yeelay burbur yaa dalkan 30 sano iyo in ka badan iyo ku soo jiray oo gacmaheena ku burburin macnaheedu ma wax cusub inaan dhisayno wixii burburay yaan dib u dhisaynaa madaxweynaha qaranka ayaa hore u dhagax dhigay tiyaatarka qaranka oo hadda dhismihiisu socdo isla markaana bulshada Soomaaliyeed ay ka qayb qaadanayaan
وهجاج داوديال ولي ورقاديا نقل سعوتان دولة الصومالية يا تركيا كعدتي فلنتا بلنقادية هراء وسيركا هؤلاء جودي دبرسك حكومة الصومالية عبد الفتاح محمد إبراهيم جيسي وكسو جندالك التركية أي الله كل من مسؤولين كترسن دولة التركية وحنا يكود هاللين أرمها إسكاشة لبضة لنع وسير جيسي أي الله كل من وسيركا دبرسك يديجانين تدالك التركية محمد أمين وحنا سجار وجرها اللي إن تركيا وتابجريو مشاريع حرمانيات أو لقدسة الصومالية جارهان 10,000 oo guri oo dawladda Turkiga ballan qaaday inay ka dhisayso Soomaaliya si gaar ah magaalada Muqdisho sidoo kale wasiirka ayaa la kulmay madaxda hay'adda guriyeynta dalka Turkiga iyo hay'ado kale oo dhinaca horumarinta dibadda ka shaqeeya kuwaas oo muujiyay inay ka qayb qaadan doonaan dib u dhiska Soomaaliya dawladda Turkiga ayaa horay u ballan qaaday dalka Soomaaliya inay ka hirgelinayso 10,000 oo guri oo loo dhisay qaab casri ah kuwaas oo badankood laga dhisi doono caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho guud ahaan daawadayaal waa nageyntaas barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad intaynu mid lamid berito ku kulmayno nabadgelyo ku soo dhawow warqaad press haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like siina share garee haddii aad nagu cusub tahayna subscribe si aad u hesho muuqaalo cusub fikirkaadana noogu soo gudbi qaybta commentiga aad baad u mahadsantahay